السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa arinta manaal iyo shiina culey iyo CK inaan ka hadlo ayaan rabaa oo aan ka dhiibto fikirkayga. Soomaaliyey waxa weeye ragga Soomaaliyeed special ragga Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed waxay yaqaanaan masayr. Gabadha markay furaan uma ogolo life kale, uma ogolo nin kale inay guursato, uma ogolo nolol inay samaysato. Like xaasid camal ayay u dhaqmaan. Waxay yaqaanaan dhaqan xaasidnimo. Sababtan saa u leeyahay waxay tahay gabadhan manaal waa la furay, waa carmal ama waa garoob hadba saad u taqaanid. haddii la furay, ninkii furay miyay lugaha uga xirxiran tahay? ninkii furay oo ay kala tageen shalay miyay lugaha uga xirxiran tahay? ugama xirxirna dabcan, waa xor. wixii casri jaahiligi laga soo tegay waxaan arkay nin buraanbur iyo gabayo tirinayo, nin kabtan Ayuub la yiraahdo oo buraanbur iyo gabay tirinayo oo asaga dhan aad u malaysa reer baadiye ah. way ka muuqataa reer baadiyenimadiisa. malihi reer baadiyaha waa cay. dabcan reer miyigu waa dadkeennii, cay ma laha, lifekooda ayaa ah sidaas. laakiin waxaan ka wadaa wuxuu reer baadiye ka yahay, wuxuu haystaa dhaqamo shishe oo hore oo mar hore jiri jiray ayuu weli dabada ka wadaa oo laga soo tegay. hablihii jaahiliinta ahaa ee aabahood xukumi jiray aan naftooda iyagu xukumi jirin, oo maxaan ku irahdaa wuxuu wataa ninka qoorta loo gelin jiray, choicekooda aan la siin jirin. dabcan jaahilnimona ay ahayd oo ay jaahil ka ahaayeen. markaan jaahil dhahayo waxaa weye diinta ayay jaahil ka ahaayeen dadkeeni hore. sababtoo ah diinteennu ma ogola gabadha in nin lagu daro. wuxuu hadal usoo qaatay, tusaale usoo qaatay wiilwaal iyo nin kale oo isna gabyaa ahaa. marka wuxuu ku leeyahay wiilwaal baa hebel gabar ka qaaday. xilligan gabar la qaadayo ma jirto. xilligii gabdhaha like geela oo kale yaa markaa iska dhici jirteen oo kale gabadha loo dhacaayo ma joogto. no waryaaya ka daaya ciyaarta gabdhaha, joojiya waxaad wadaan. labada qof lifeka ayay isku darsadeen. dabcan labadooda way sheekaysteen, way isshukaansadeen ama way isxodxoteen hadba saad u taqaanid. way isfahmeen, way isguursadeen, kadibna way kala tageen. waxay ku kala tageen I don't know. dabcan wax unbay ku kala tageen. dabcan wax unbaa soo dadejiyey maxaan ku irahdaa kala tagooda. laakiin gabadhaha ka dhigina xoolo, like animal ninka uu lahaa qoobka uga xirnayd. ha ka dhigina. no, saas ma aha. waxaas waa laga soo tegay. labada qof lifekay isku darsadaan, hadday isfahmi waayana way kala tegayaan. ardullaahi waasac. ma jirto in la isku xabagaysan yahay. cid ku xabagaysani ma jirto. lifeka haddii laisla fahmi waayo bye waa la kala tegayaa. dabcan ku kale ooy la jaan qaado ayay raacaysaa, ku kale ay ka heshay raacaysaa. tan kale nin baa naag laga qaaday aad leedihiin, isagaaba ceebaynaysaanba. waxaa ka dhigaysaa nin liito oo maxaan ku irahdaa laga caqli badan yahay ama somehow laga activesan yahay,
laga qaada la leeyahay gabadhii baa laga qaaday. No, gabadhan ma la qaadin. gabadhan life bay leedahay, lifekeeda meeshii ay ku qanacsan tahay aadaysaa. haddeerse maba isqabaan labadan qof, laba qof oo isqabta ma aha. marka gabar baa la qaadaye waa isugu tegaynaaye shiina culey baan la dagaalamaynaye waa waray. No, waa qalad waxaas waa khalad. shiina culey maxaa ula dagaalaysiin? gabadhan waa gabar adhalti ah, gabar weyn, gabar majuur ah, gabar duurkeedaa maraysa, gabar yurub joogta. No, wax la qaaday ma jirto. waa idin sheegay xilligiina casri jaahiliga oo gabdhaha iyo geela la qaadaya ma ah. waa dhamaatay gabar sidii geeli loo qaado. heedhe joojiya marka bahadilka. gabadhaha bahadilina hana ku xadgudbina. wiilkaana mar walba dee gabadha wuxuuba leeyahay abti saan u jeedno. dee hadday ninkii qabayna ay kala tageen, waa gayaankeed way guursan kartaa. xataa dabcan hadday ka hesho way guursan kartaa. ninkii horena hadday isfahmi waayeen waa kala tageen. daseed maxaa keenay? wixii la isku dili jiray waaye. war waxaas casri jaahiligii ahayd. kabtan ayubow, reer baadiyanimada iska daa. waxaa waa baadiyaha gaalkacyaa kasoo orodee. waxaas ka bax adeer. gabadhan choice ay leedahay. naagtaada adiga hadda xaasi tahay oo naagtaad furtay, maxaan ku idhahdaa, haddii naagtaad furtay lagugu hor wadwado kulaha, come on man, naagta ma adaa iska leh? waa la wadwaday kulaha, la wadwado. maxaa mashay alaaba marka hortaada lagu wadwadaayo? war iyadaa marmaraysa hortaada. no, inay lagu hor wadwadaayo. war aya bahdilka joojiya nimanow. maxay tahay waxaas iyo qadafka ku hadlaysaan? lagu hor wadwado mashay iyo alaab adigu lahayd baa marka hortaada lagu wadwadaayo. baadi waxay maqli jiray baadi in ninkii la aragti baa ka dhaxays. ma adaa iska leh? no, iskama lihid qofkan ilaah baa leh. shalay waa is aragteen, waa is shukaansateen, waa is guursateen, waa isfahmi weydeen, waa kala tagteen. furiinkana allah baa baneeyey, guurkana allah baa baneeyey. come on man, hortaada lagu wadwado. kuye kabtan ayuub wallaahi waa ka xanaaqi suu u hadlaay. maxay tahay ninka waxaa ku hadlaaya? war waa hortaaday maraysaa, lugaheeday ku maraysaa, laguguma hor wadwadaayo. alaab ma aha. come on, way kugu hor xaragoone, way kugu hor jeestayne, ninkay rabtayna guursaneed. hallow ninkay rabtay guursanaysaa. gabadhu waa xor. maxaa ka hadlaysaan? hortaada lagu wadwado. nimanka soomaalida waaba xaasidiinba. naagtay furaan waxay rabaan weligeedii allahed inaynay guursan. nin ka dambeeya inaysan guursanay rabaan. halkaas soo taagnaata ayagana 10 guursadaan. alla maxaan u fiirsaday. kuwan social mediaha jooga ee hadda dhalinyarada ah iyo kuwii hore kulli waa isku mid. waa same shit wey. waa isku mid. nin soomaali dhagaxow ka kanow. acuudu billaahi. dhaqankoodii ka kan, wax kasta ka kan, wax walba adayg. dhaqankoodu waa ku adag, waa adag yahay. la dhaqankoodu waa adag yahay. dabeecadoodu waa adag tahay. qalbigoodu waa adag yahay. waa dhagax xajar. qalbi xajar ay haystaan. bal fiiri xaasidnimada intaas la eg. kulligood waa isku mid. weligay maqli jiray kuwa badan xataa ilma adeerna waxaa maqli jiray ayagoo dhah allah tiibaa la guursaday, waa inaan cararaa. waa qosli jira xilligaa waa yaraa. markaasaa waan xasuustaa waxay dhihi jirtay, maxaan ku irahdaa, gabar habartay ah oo maxaa la cararaysaa ku eryanaya. maya arooskeedii baa beri la tumayaa baa layidhi. waa cararaya. hee maxaa ga aadaysaa? miyigaan u baxaya. miyiga ilaahan idinku dhaarshe ka warrama.
that's why uga hadlaaya hadda inay dabeecaddas wada leeyihiin haddana weli socoto. waxaan u malaynaa in la ilbaxay, waxaan u malaynaa in gabdhaha xaqooda la siinayo, waxaan u malaynaa in xuquuqdooda gabdhaha la ogol yahay. maba loo ogolo xuquuqdooda gabdhahe. waa maxay waxaan? maba loo ogolo choicekoode. maba loo maleeyo inay maxaan ku idhaahdaa human being ayaga la siman yihiin. maba u maleeyaan be ilaa iyo right now. dadkan yaryare hadda jooga sidaa u hadlaya kabtan ayuub iyo waa maxay waxaas? waryaaya gabdhaha waa xor. qofka bili-aadanka adiga kula simana no inaa hoos u dhigtid. no hoos ma geyn kartid. sida adiga choice u leedahay, choice u leedahay, waad furtay, that's it. way guursanaysaa. any man ay jeclaato ay ka heshay guursanaysaa oo dooqeeda raaco. come on, waa maxay dadkan? wallaahi waa yaabay. waxaan iri oh wow, xilligan la joogo iyo nimankan saan u hadlaayaan oo wiilkii ku wada shireen oo wiilkii wada cunaayaan. war hadday ka hesho ha guursataan leeyahay. sababtoo ah wiilkaas way kala tageen. that's it, way kala tageen, way isfureen. maxaa laga rabaa? gabar la furay oo carmal ah life ay u baahan tahay, nin kale ay u baahan tahay inay guursato. kay rabtayna guursanaysaa. nimanka soomaaliyeedow adinkaba waa guursataan, 10 baad guursataan. weliba hooyada soomaaliyeed hadday ilmo dhasho runtii guurka way ka raagtaa. waxay iska ag fadhiisataa, caruurteeda iska korsataa, halka aabbuhu marba naag uu ku boodayo, marba naag guursanayo. marka waxaa weeye gabadhan caruur ma wadato, waa gabar yaroo dhalinyaro ah. marka waxaa rabtiin inaa meel ku fadhiisisaan oo meel kuduudisaan keligeed. no, life ay u baahan tahay, way guursanaysaa. ninkay rabtayna shukaansane, ninkay rabtay raacaysaa ee guursanaysaa. maxaa dhacay? ma adinkaa guri kula noolaanayo? waawad furtaye maxaa ka rabtaa? war 3 dalqadood hadday dhammaato isgoon. adiga iyada shaqo isku malihidin. ciisa bidiini muusa bidiini. faraha ha la kala qaado. gabdhahan ha laga wareegsado. aan idin leeyahay nimanow, dabeecaddaana bedela. naagtaa furtay inay weligeed meel kuu fadhido xaasidnimo weeye taas. cadowtinimo weyn weeye. adigana aad maalinba naag guursatid, ilmo meel walba saa u dhigtid. no stop. marka wixii casri jaahiliga reer baadinimadii hore laga soo tegay, jaahilnimadii diin yaraantii iyo wixii baa weli wadaan. stop. xuquuq bay leedahay gabadha, choice ay leedahay, waxay leedahay caqli. xayawaan ma aha. like xayawaan baa adinka ula dhaqmaysaan, adinka leedihiin oo kale. adinka ma lihidin gabadha, allah baa le gabdhaha. adinku ma lihidin. sida adinkoo kalena waxay yihiin human being idinla mida, idinla siman. waxaa weeye magta ayaa ku kala duwan tihiin. ya maahane gabadha waa siman tihiin. ilaahay xaqiisa naf ahaan waa u siman tihiin, bili aadan ahaan waa u siman tihiin. waa maxay marka? waa la qaadayay ma alaaba? waa gabadha laga qaadayay, waa laga watayay, waa wareeg, waa la casumayay, fiiriyoy. weel miyaa mise alaab? waa alaab. ri miyaa? ri gabadha la qaadanayo mise geeli a qaadi jirteen wey? no, maaha animalkii a kala qaadi jirteen, maaha camal. waa human being idinla mid ah, choice leh. waxay rabto diidi karta, waxay rabtana ogolaan karta. ya nafteedana iyadaa mas-uul ka ah. waa gabar weyn, adhalti ah, majuur ah, maskaxdeeda ku socon karta. marka waxaa weeye gabadha ka dhammaada oo wiilka ka dhammaada. shiina culey anigu ismalihii waxbuu sameeyey. gabar walaashiisa isbarteen oo weliba abti lahaa uu abti ugu aadan yahay. I think abti buu ugu aadan yahay. ayuu casumay. waa ku imanaya. okay, you're welcome. way u tagtay si gobonimo lahu u soo dhaweeyey.
maxaan ku irahdaa waa kaasaayo maxaan ku irahdaa ii sheeg youtube-keedii buu maasha allah heer gaarsiiyey oo uu yiri asxaabtiisii iyo dadkii isaga ku xirnaa sheer aad u sameeya way u sameeyeen marka wuu wanaajiyey runtii waxba umuu dhimin waxna wiilkan muu samayn siikayna waxba umuu dhimin waxaad dusha iska saaraysa maxaa weedha iyo waranka kulmiyey kulaha excuse me waxaas waryaayaha isku xirxirina oo been ah iyo isku dirnimo social media dadka jooga dadkayba isku diraanba rufyaannimay meesha uga soo wada fadhiistaan usoo wada galaan war labada nin ha isku dirina hooy labadaa nin ha isku dirina joojiya waxaad wadaan waa khalad runtii hadhow haddii dhibaata halkaas ka dhacdo adinkaa mas-uul ka ah waxaad samaynaysaan waa isku dir cad aad u jeedaan weliba kabtan ayuub uu leeyahay haa hebel baa mindi halkaas ka geliyay kulaha rubadda ah waryaaya waxaas wax lagu kaftama maaha wax laga sheekeeyana ma aha waxaas wixii casri jaahiliga laga soo tegay waay siikay gabadhan isaga xariga hayay isagaa ninkii ahaa isagaa maxaan ku irahdaa mas-uuliyadda xarigga haystay isagaa sii daayay xarigga naagtu isma furto isagaa furay marka come down gabarna ma waayaayo naag alla naagtu doono helaya mid cad mid madow mid yalow ah kulli whatever ayuu heli karaa maxaa keenay marka isku dirkan iyo waa laga qaaday iyo waa waray iyo war labadaa nin awal waa aragteen youtuberada marba laba iska laalaadsama oo islaaya maxaan leeyahay ismaaga oo iscaaya marka dee awal hadday iska laalaadsadeen oo maxaan ku irahdaa ii sheeg sidii dadkaasoo kale ee isaga wada laalaadsanaya isaga laalaadsadeen oo ismaagmaageen ma aha in tan lagu xiro oo tan lagu dabaqo ma aha oo la dhaho haa maxaan ku irahdaa waa u jeednay naagtuu rabay haa babababa waryaaya isku dirka joojiya waryaaya ilaahay ka baqa rubadaa mindi lagu shubay iyaan maqlaaya waryaaya hooy jooga isku dirka joojiya waxaan is not funny wallahi stop isku dirka joojiya iyo maxaan ku irahdaa gabadha aa xasdaysaan xaasnimada aad wadaan labadan qof shalay igaa isguursaday igaa isjeclaaday ayagaana kala tegay dabcan ninkaana xarigga haya isagaa furay hadduu rab xariggu haysan lahaa weligeed ba ha warwareegto wuxuu dhihi lahaa wali waa ku jeclahay kuma furaayo dabcan hadday rabtana way usoo noqon lahayd oo caro yara haysay laakiin wuu furay faak waa tuuray marka dee datseed maxaa marka ka rabtiin labadan qof ayagaa shalay iswatay ayagoo shalay iswataad isku aragteen ma aha inaa maxaan ku idhaahdaa aad dadka isku dirtaan marka labada wiil aad dab ka shaqaysaan stop waxaas hunguri laguma raadsho ilaahay ka baqa waxaasna wax fiican ma aha ra'yi fiicanna ma aha dadka la iskuma diro rubadaa mindi laga geliye hebelow markaa maqla waaba naxayba acuudu billaahi min ashaytaan rajiim yaa kabtan ayuub dad inay rubad mindida iska geliyaan uba rabaabaanba dhahayba aniga waa maxay waxaas stop waxaas laguma sheekeeyo waxaas waa wax laga soo tegay kulaa naagtaydi haddii lagu hor wadwadan wuu dhahay naagtaad maadaa iskale ilaaha iska lehe maxaa u furays haddaa rabtid ma haysatid ma dhaqaalaysatid ma waxay jecesha u samaysid waa furtay okay waxaad diidaysaa maxaan ku idhahdaa in nin kale ay guursatay inay noolaato xaragootaa diide hortayda lagu wadwado kuye waryaa waa hortaaday socsocone way ku xaragoone maxaa jira sidaas isu walaaqaysaa weliba iska siinaysaa intay weliba kaa raysatayo oo qurux badnaatay ya ninka waxa looga tago niman xunxunaa jiro marka waxaa rabtaa adigoo xumaa oo weliba adiga xarigga hayso oo adiga sii daayay oo furtay baa waxaa rabtaa yay hortayda socsoconin yay nin kala guursanin come on man yes way guursanaysaa way socsoconay hortaada way ku xaragoone awalba iyadoo socoto xaragoonaysa soo shalay maad arag
oo waa ku jeclahay maad orana ma soo xiraysanay dee markii dambana haddaad isfahmi weydeen furiinka allaa baneeyey banaankaas waa weyn waa la kala marayaa okay maxaa ka rabtaa marka ninkay doontay guursanaysaa nimankay guursanaysa maxay ugu diidan tahay lifekaama u diidan tahay isa socodka meelaha isa socotaba ka waran acuudu billaahi min ashaytaan arajiim stop waryaaya waxay wadaan hiilada joojiya gabadha ayaad u dan leedihiin anigoo idin jeedaa shiina culey ma aha gabadha xaqeedaad rabtaan inaad aastaan oo lugta saartaan idinkama yeelayno annaga kamaan gabdhaha ka soo hadla arrintan ka soo wada hadla gabdhaha youtuberado arrintan waryaaya hey wallaahi waa yaabay waryaaya shiina culey uma dan lahidine gabadha ayaad waxaad diidaysaan inay choice leedahay inay ninkay doonto guursan karto haddii la furo oo haddaad furtaan nin guursato aad diidan tihiin intaad furtaan baa weli waxaa leedihin nin ma guursan karto yaa horteeda lagu wadwadin yaa nin guursanin ya sida ninkaas aan sheegayo oo maxaan ku idhahdaa cararay oo miyiga u baxay oo tii baa la aroosayaa tii shalayna waa macaane qurux badane adduunkadaan kugu jeclaha ma seexan karo markii kalena tii ilaa raydna waa xasuusta waxaan uga soo hadlahay labadaas cila isugu kay darsamay iyo weli dabeecadii oo weli taaganba ka waran dhaqankii oo taagan weli nin soomaali dhaqankiis isma bedelo barti yaqaan bari uma korodho ayaa maqli jiray nimanka soomaaliyeed hal meel iskaga dhagaan weligoodba haystaan maba yaqaanaanba ka ilbaxa ka gudba horay uga socda maba yaqaanaan stop ragga soomaaliyeedu waxaan ay wadaan ka daaya gabdhaha adinka ma lihidin ilaah baa leh saad u furteen baana nin kale oo ilaahay calafkeeda siinaya wayna guursanaysaa maxaa jira adiga 100 baa guursanay iyadana way guursanay waa salaamaya walaashay manaal waxaan leeyahay choice-ka adaa iska leh kaaga hore haddii aad ku soo noqonaysid adaa leh haddii aadan rabinna oodan la noolaan karinna ardullaahi waasac waxaa weeye ilaahay maxaan ku idhaha faraj khayr qaba ha kuu furo oo kale mid kale oo maxaan ku idhahdaa fiicanna ilaahay ha ku siiyo mana lihi isagaa xun siikay aniga ma aqaano ma dhihi karo waa xun yahay haddaan dhaho waxay ugu tahay dembi waxay ugu tahay khalad waxay ugu tahay gaf marka waxaa weeye runtii arrintaas ayaan ka hadlaayay aniga hadday dhaqmaayaan raalli baan ka ahay sababtoo ah hadda kolley way isfureen laakiin guri dhismaaya oo dee waxay la mid tahay adoo masjid dhisaysid ajar badan bay leedahay waa wax fiican ma xuma marka runtii haddii laakiin ay labadii qof isfahmi waayeen ilaahay furiinka wuxuu u baneeyey ayaa meesha ku jira ilaahay ma khaldamo ilaahay is always right marka waxaa weeye runtii shiina culeyna ha laga haro waxba ma uu samayn gabar u abti u yahu soo dhaweeyey gabar in adeertiisu soo dhaweeyey gabar walaashiisu soo dhaweeyey gabar soomaaliyeed buu soo dhaweeyey waxba ma uu samayn weliba wuu wanaajiyey oo share out buu u sameeyey intii oo ay heli karto oona maxaan ku dhadaa views iyo subscribe ahna way heshay good saasaa la rabaa ha laysu garab qabto sidaas marka waxaa weeye walaalayaalow xagga xun leh waxaa ka fiirinina soomaaliye mid dhibaato waxaa ku dhigtaan dhanka xun unbaad wax walba ka eegtaan positive maba tihiinba kulligii negative ay u badan tihiin soomaalida negative ay u badan tahay positiveka nagu yar dhanka xun unbaan eegnaa dhanka wanaagsanba waa laga soo daboolay soomaalida isleeda intooda badan stop marka joojiya waxaad wadaan waa khalad labada wiilna walaalo weeye laba wiilo soomaaliyeed laba wiiloo maxaan ku rahdaa social mediaha ku wada jira laba wiiloo maxaan ku rahdaa caan ah oo ummadda soomaaliyeed wax u sheega weeye oo la daawado oo caan ah marka dee walaalayaalow joojiya waxaad wadaan
dab afuuf lama noqdo naar afuuf miyaa la dhaama lama noqdo arrinta dajiya waxaa weeye hal hadduu cid eedeeya waa la yaabay hal hadduu bilaabo nimanka soomaaliyed oo inuu gabar eedeeya kulligood oo iskugu tagayaan gabadhii hadda gabadha uma soconna bay ku leeyahan wiilka ay ku dhegan yihin waa been waa gabadha xuquuqdeedii bay aasayaan waa u jeeda aniga gabadha xuquuqdeedii xoolo camal ay ka dhigeen waxay ka dhigeen qofaan choice lahayn waxay ka dhigayaan maxaan ku dhahdaa inaanay xor u ahayn lifekeeda waa u jeednaa marka waxaa weeye walaalayaal waan salaamayaa stop dumarka liidmada ha laga daayo la liidaayo hala joojiyo in lays liido ragow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu